Imise dhibcood ayay Liverpool u baahan tahay si ay ugu guuleysato Premier League? Kooxda Liverpool ayaa hadda 2 guul u jirta hanashada horyaalka Premier League kadib markii ay Axadii 2-1 kaga badiyeen West Ham. Liverpool waxay kulanka soo galeen iyaga oo 8 dhibcood ka sareeya Arsenal, taasoo barbara 1-1 la gashay Brentford maalintii ka horeysay. Ciyaartoyda uu hogaamiyay Arne Slot ayaa hogaanka ciyaarta qabtay qaybtii hore kadib markii Mohamed Salah uu kubad qurux badan u dhigay Luis Diaz oo gool u bedelay. West Ham ayaa ciyaarta soo barbaraysay daqiiqadii ugu dambeeyay kadib markii Robertson uu iska dhaliyay gool. Si kastaba, Virgil van Dijk ayaa noqday geesiga kooxda kadib markii uu madax ku dhaliyay goolka guusha daqiiqadii 89aad ee ciyaartii ka dhacday garoonka Anfield. Natiijadan ayaa Liverpool ka dhigaysa inay 13 dhibcood ka sare marto Arsenal, waxayna u baahan yihiin kaliya 6 dhibcood si ay u hantaan horyaalka Premier League.